Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Waxaanu qaadan doonaa darsigii labaad ee ku saabsanaa Word-ka. Darsigii hore waxaan kusoo qaadanay introduction of Word-ka iyo fontska. Darsigana haddii alla idmo waxaan ku qaadan doonaa maanta paragraph iyo style. Aynu ka horeyno paragraph-ka. Ugu horeyn markaan doonayno inaan qoraalkeena wax ka bedelno wax laasim ah marka koowaad inaan select garayno qoraalka oo dhammaystiran ama qaybtii aad doonayso inaan wax ka bedelno kale. Marka inagu imika waxaan select garayn doonaa qoraalkeena oo dhan. Marka aynu saa u select garayno waxaanu samayn doonaa halkan waxa weeyaan align left weeyaan marka doonayso qoraalkaaga inuu dhinacan bidix soo wada aado ama ka sinmo. Iminka leadka muxuu ahaaye u fiirsada bidix ayuu ka siman yahay. haddaan xaggan tago qoraalkii midig ayuu saa uga sinmayaa. halkan waxa weeyaan center. marka tan waxaa la yidhahaa align left waa tan bidixda. halkanna waa centerkii weeyaan. tanna waxa weeyaan qayb buttonkana waxa weeyaan ama optionkani waa right-ka weeyaan. marka kii kolba qofku doonayo inuu ka dhigto qoraalkiisa ayuu ka dhiganayaa. saddexdaasi intaas ayaan kaga soo gudbaynaa. halkan waxaa la dhahaa justify. justify macnaheedu waxa weeyaan iminka u fiirsada qoraalkeena halkan you can iyo for way kala horeeyaan ama ma sinna. halkan oo kale ma sinna. marka justify way inoo sameysaa qoraalkii ayay inoo sameysaa. marka iminka aynu siino justify aan click nano. marka waa ka qoraalkeeni inoo simay. inoo simay. halkan dee ma simi karayo iyada oo iminka labada line hore kan saddexaad dee kelmado kaloo dheeraad ma jiraan. marka waa full stop ku taala. marka intii paragraph-ka oo socdaba uu ku simayaa intii line sinmi karaysa. intii aan sinmi karayna dee muxuu ahaaye oo sanoo kale waa la iska daynaya. marka waxaan rajaynayaa inay intaana ila fahanteen. halkan oo kale iyadu waxa weeyaan markaad doonayso inaad laymankan ama khadadkan u kala dhexdhexaysiiso space. iminka markan masalan haddaynu nahno oo kale 0.5 oo kale waad aragtaan farqiga ama spaceka laymanka u kala dhexdhexeeya. labadii line ba intaasoo space oo kala dhexeeya. halkan oo kale masalan waxaad tiraa kale 3.0 space aad u si badan ayaa usoo dhexeynaya. ku celina seeda hore oo ahayd 1.0 waa seeda hore. waan isla fahnay intaasi. haddaba halkan waxa weeyaan qaybtan kale ee ku xigta optionkan ku xigaan waxa weeyaan waa waxaad midabaynaysaa background-ka qoraalka markaad doonayso inaad midab u yeesho. halkan baan click siinaynaa. midabkii kolba markaasi doonayno ayaynu dooranaynaa. tusaale iminka waxaad kaga disaa midabkaas kala wadeynaba waa kaasi qoraalkeena. markaa midabkaasi ayuu noo noqonayaa. control z ayaad kaga soo noqonaysaa markaad doonayso inaad sii soo dhigto qoraalka. qaybta masalan iminka optionka kalena waxaa la dhahaa border baa la dhahaa. qoraalkaaga markaad doonayso inaad qayb kamid a calaamadayso oo kale ayaad isna u isticmaalaysaa ama aad magaranaysaa afargees xariijin afargees u geliso oo kale. iminka kan oo kale aynu calaamadino highlight garayna ayaan ka wadaa. dabeetna halkan baad taabanaysaa. halkan ayaad dooranaysaa outside borderkaas taabanaysaa. kabacdi waa kaas qoraalkeenaas wuxuu sameeyey waa kan leadka inoo geliyey. marka ciwaamado kale ayaad u adeegsan kartaa. haddaad doonayso qoraalkan kalena uu ku dara isagana sidaas si leego kale oo xariijintan kusoo wada darana halkan baad click siinaysaa. kabacdi waxaad taabanaysaa afargeeskaas maad dul taabanaysaa. ka paragraph-kan saddexaad haddii doonayno kusoo darno sidii si leeg mar baad click siinaysaa. dabeetana kabacdi saas baad samaynaysaa taabanaysaa. intaasi waan isla fahanay. halkana waxaa jirta qoraal yar oo kale oo isagana inoogu diyaariyey. masalan iminka intaas oo kale my family oo kale ayaa saa highlight garanaysaa. isna waxaad samaynaysaa borderka markaad doonayso intaas qura inaad geliso ciwaanka kaliya. halkaas baad taabanaysaa. dabeetana all border baad oranaysaa. qaybtaas ayuu ku gelinayaa. marka control z ayaan kaga soo noqono. okay intaas qaybta hoose paragraph-ka waan isla fahanay. iminkana qaybtan sare ayaan sharaxaynaa haddii alla idmo. qaybtan sare iyadu waxa weeyaan tan waxaa la dhahaa boltis baa la dhahaa. tanna waxaa la dhahaa numbering. marka waxa weeyaan tan baynu ku bilaabeynaa. iminka qoraalkan oo kale markaad doonayso inaad qodobayso kale highlight garayno
ciwaankan ka reebaynaa inta kale ayaan highlight garaynaa sorry dabeetana waxaad samaynaysaa markaad doonaysa inaad qodobayso kale saasaad odhanaysaa qodobadii aad doonaysa ayaad ka dhigaysaa marka kan wuxuu kaa caawinaya markaad doonaysa inaad paragraph badan aad qortay aad kala qodobayso kale kolba kii aad doonayso ayaad ka dhigaysaa مثلا kan waa kala wawdaa option ka ku xigaana waxa weeyaan isaguna waa uu nambareynayaa nambaraadyo doonaysa inaad ka dhigto kale sidaas oo kale ayay isagana u adeegsanaysaa ama alphabetkii oo kale ABCD oo kale marka labadani waxay qabtaan labada shaqo ay qabtaan option ka saddexaadna isaguna uu ka yara duwan yahay marka labada option iyagu shaqadaas ay qabtaan option ka saddexaad baan isagana u baahanahay in isna yara sharaxno isagu labadii uu la mid yahay laakiin waxoogaa yar uu ka duwan yahay tusaale isagu wuxuu ku qodobeynayaa tusaale ka bixino mesela imika waxaan nidhi office course oo kale ayaan nidhi markaan office course aan nidhi waxaan sameynaynaa select gare kabacdi option kan ayaan tegaynaa option kan markaan tegno waxaan ka dhignay inuu qodobeeyo one buu ka bilaabay office course oo kale dabeetana waxaad odhanaysaa enter baa tidhi two buu ka dhigayaa marka ma doonayno inuu two ka dhigo waxaan doonaynaa inuu qodobeeyo marka enter tiraaho uu two-ga ka dhigo waxaad samaynaysaa tab keyboard-ka ayaa taabanaysaa numberka tab dabeetana a buu ka dhigayaa marka a ka dhigo waxaanu masalan ku qornay word oo kale ay ku qornay kabacdi waxaad taabanaysaa enter b buu ka dhigay b-na masalan waxaan ka dhiganaa excel oo kale ka dhiganaa sidaa markay tahay waxaan u baahanay word-ka wax isaga ku saabsan inaynu si hoos dhigno kale office-ka dabeetana word-ka wax dabeetana b buu ka dhigaya marka enter mar taabato kabacdi tab uma taabanaysaa marka uu ku bilaabaya word-ka waxyaabihi hoos imanaayo kale marka waxaan nidhaa font-igi casharkiinu shalay qaadanay oo kale font markaan nidhaahno waxaad taabanaysaa enter kabacdi waxaad odhanaysaa paragraph-kan ay maanta qaadanayno oo kale ayaad ku qoraysaa saasaad ugu soo wadaysaa muxuu ahay kale marka waa kaasi isaguna optionkaasuna intaas ayuu qabtaa tusaale iminka kuwan oo kale waxa weeyaan aynu highlight garayno qoraalka kuwan oo kalena waxa weeyaan qoraalkaagii oo kale iminka word iyo font iyo excel intaas oo dhan bay xaggan u durkinaysaa optionka haddaad taabato wuxuu tegayaan qoraalka midig ayuu qabanayaa haddaad hadhowna xagga mid ka soo celin kartaa marka labada butonna intaasun bay qabtaan labada butonna waxa weeyaan qoraalkaaga mar xagga u kaxaynaysaa marna xaggan marka iminka masalan word oo kaliya haddaad doonaysa inaad xaggaa u yara kaxayso word oo kaliya haddaad doonaysa inaad xaggaa u yara kaxayso waxaad samaynaysaa waad saasood highlight garanaysaa ma highlight garaysay waxaad taabanaysaa buttonka midigta qabanaya marka waa kaa kan waad kaga soo celinaysaa labadan optionna waxay iyaguna qabanayaan paragraph-kini marka imika saa u nimaadno waxaad samaynaysaa paragraph-ka sare imika saddex paragraph oo kala duwan kaas sare oo kale ayaan ku tijaabinaynaa waad highlight garanaysaa kabacdi waxaad taabanaysaa kan already wabu joogaaba imika markaad kan taabatana qoraalka xaggan ayuu tegayaa markaad kan kusoo celisana xaggan ayuu imanaya labadaas un weeyaan shaqadoodu marka intaasi ayaynu ku dhammaynay paragraph-kii casharkii maanta intaasi ayaynu ku sharaxaynaa paragraph waxaa inoo haray stylena casharka maanta ayaynu raacinaynaa isagu maadaama aanu optionkaasi saa usii badnayn qaybtaas maadaama saa usii badnayn iyadana waan raacinaynaa iyaduna wax kale maaha waa style waa kan waa kuwan styladii halkan yaalaan marka saa mouse u dul qabato uu ku tusayaa midabadii uu ka bedelayaa fartiisii waa style la diyaarsan marka haddii uu midku qanciyo kale ka doonayso ayaa dooranaysaa marka inagu masalan iminka keenaas uu loo joogo waxaan sameynaa style inaga inoo khaasa ayaan sameynaynaa marka halkaas ayaad taabanaysaa marka saa u taabato waxaad odhanaysaa create style baad odhanaysaa create style markaad tiraahdo tusaale waxaad u bixinaynaa kale Soomaali markaan style-ka cusub Soomaali u bixino waxaad odhanaysaa modify baad odhanaysaa modify markaad tiraahdo waa kan style-keeni iminka qoraalkaas ayaan doonayaa inay inaga style inoo khaasa ay ka dhigno marka waxaad odhanaysaa fartan oo kale waxaad tidhaahaa fartan oo kale saa inooga dhig baan leenahay qoraalkaas in doona hadhow toole iyo style cusub inaan samaysano qoraalka imika highlight garaysan inoo bedelmo kuwa kalena markaan highlight garayno style-keeni wuxuu inoo soo gelayaa qaybtan sare ayuu inoo soo gelayaa maxaa imika head 1 head 2 marka qaybtan ayuu isaguna inoo soo gelaya markaan style-ka cusub soo sameyno
marka iminka waxaan yiri farta waxaad ka dhigtahay oo kale Algerian kaasan ka dhignay size kan mesela waxa ka dhigaysaa 14 kaasan ka dhiganaa bold iyo italic iyo underline saddexdaba israacina waa tan farteen iminka halka waad ka tamaam filaya midabkana dindano ka bedeli karnaa marka inta ka dhigno xagan oo kale waxa sameeyay align ka oo center ka dhigi karnaa midig bidix marka iminka waxaan soo qaadanaynaa tusaale soo qaadanaa marka midabkana waxaan ka dhigaynaa tusaale casaan kaas oo kale ayaan ka dhiganaa midabka markaan soo diyaarsano style-kii farteena cusub inagu in create garaysanay halkan ayaad dooranaysaa marka iminka waxa weeyaan paragraph kaas oo qoriya ayuu deenina iminka waa kan paragraph muxuu ahaayay haddii misla doonayso kale qayb kamid inaad ka dhigto kale marka iminka inagu waxaan deeninaa waxaan ka dhiganaa paragraph-ka like highlight garaynay iyo buudinina marka paragraph marka soo doorato halkan waxaad dooranaysaa no space bas ka oranaysaa ama waxaan oranayna no style ban ka wadaa halkan waa ka magaciisa bay noogu yaalaba magaciini intaas markay dhamayno halkan add new style gallery-gan halkan ku wadaa marka halkan bay noogu soo darayaa marka waxaan oranaynaa okay marka waxaan waa ka style cusub oo Soomaali leeyahay ayaa noogu soo biiray qaybtan styleska marka hadda fartan kale marka saas kala soo raacno kale oo ka fartan hadan click siino oo ka style cusub oo marka hadii mesela aad mar diyaarsatay halkaas baad ku save garaysanaysaa kugu jiraya tusaale imika qaybtan oo kale ayaan highlight garanaynaa family oo kale ay ka dhiganaa style-kii nabi nooga dhigaya casharkii maanta intaasi ayaynu ku soo gabagabayn doonaa wayno iyo casharkan xiga aad baad mahadsantiin